madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo safar ku joogay maalmahan oo dhan caasimada Koonfur Galbeed ee degmada Baraawe ayaa maanta kulan la qaatay ciidamada amniga ee ka howlgala degmada Baraawe qaybahooda kala duwan militariga daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada ADMIS ee Uganda wuxuu madaxweynaha kala hadlay si guud ahaan maamulka degmada kan gobolka iyo ciidamada amnigaba inay adkeeyaan wada shaqeynta ka dhaxaysa dhexdooda iyo qaabkay u wadaagi lahaayeen xogaha cadawga si loo ilaaliyo xasiloonida iyo nabadgelyada ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidaas la mid ah madaxweynaha wuxuu kula dardaarmay ciidamada qaybahooda kala duwan ee horay u bilaabay la dagaalanka argagixisada ee Al-Shabaab howlgalo fara badan ka fuliyay nawaaxiga degmadan Baraawe in la sii laba jibaaro Baraawe waxay ka mid tahay sidaad ka warhayso degmooyinka horay u bilaabay la dagaalanka khawaarijta Al-Shabaab tuulooyin fara badan oo degmadan hoos yimaadaan horay uga sifeeyay ciidanka daraawiishta kuwa militariga ee ADMIS oo iskaashanaya madaxweynaha wuxuu aad u bogaadiyay una mahadceliyay ciidamada qaybahooda kala duwan maamulka degmada iyo gobolka dadaalada faraha badan ee la sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay ee la dagaalanka dhinaca khawaarijta Al-Shabaab iyo sida looga shaqeeyay mashaariicda horumarineed ee degmadan laga fuliyay muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha wuxuu kula dardaarmay dhammaan ciidamada in la laba jibaaro la dagaalanka Al-Shabaab intaan ka badan aan la sii daawan karin dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay ka joogaan degmada Baraawe iyo tuulooyinka hoos yimaada taasoo si guud ahaan ciidamada ay u ballan qaadeen in kaalintooda ay qaadan doonaan ayna fulin doonaan amarka madaxweynaha oo ah in la xoojiyo howlgalada looga soo horjeedo kooxaha argagixisada dowladda Koonfur Galbeed oo hogaaminaya madaxweyne Cabdicasiisna wuxuu ciidanka u ballan qaaday qaybahooda kala duwan wax allaala wixii taakula nooc walba leh oo fududeynaya howlgalkooda inuu ku caawin doono haddii alla idmo kulankan wuxuu ku soo dhamaaday si guuleysa garad ah madaxweynahana aad iyo aad ugu mahadsan yahay ka maamul gobol ahaan iyo degmo ahaanba anagoo isku duuban muddooyin maalmihii halkaan nala joogay shaqada wanaagsan oo degmadan ka qabtay aad u mahadsan.